Bismillahi Rahmani Rahiim. Magacaygu waa Abuubakar Naasir Cali. Kusoo dhawaada macadka tababarada tiknoolajiyadda ee Buundo. Waxaa noo sii socda barashadii programka Microsoft Word. Waxaan qaadan doonaa cashirkeena 6aad. Waxaan ku baran doonaa working with lists oo ah sida loogu shaqeynayo listiga. Waxyaabaha aan ku baran doono waxaa ka mid ah marka hore sida listi loo diyaarinayo listiga anagoo 3 nooc u isticmaali doono, laakiin waxaa ugu caansan 2 nooc oo ah bullet list iyo number list. Midka saddexaadna waxaa waaye symbols ama calaamado inaan u isticmaalno bullet ahaan. Sidoo kale waxaan ku baran doonaa cashirkan inaan bedelno kalarka. Intaas markaan kasoo gudubno aan u imaano marka documentiga Wordka aan practical ku qaadan lahayn. Halkan waxaa inoogu diyaarsan waa list oo ah xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Jowhar, Hanti-wadaag, Horseed, Kulmis iyo Buulsha. Waxaan bilaabeynaa marka sidee loo soo gelinayaa bullet ayaan ka bilaabeynaa. Marka ugu horeyso waxaa lagaaga baahan yahay inaad doorato horta listigaaga. Anaga hadda listiga aan rabno inaan bulletka aan gelino waa 4 xaafadood. Waxaan sameynaa waa selection oo ah qoraaladii ayaan dooranay marka hore. Intaas markaan kasoo gudubno si aan bulletka aan u doorano marka hore waa inaan imaano groupkan paragraphs. Paragraph markaan imaano qaybtan midka koowaad ayaa halkan waxaa loo yaqaanaa bullet. Marka bulletka waxaa ku jiro bullets kala duwan. Kuwa ugu caansan waa kuwana. Waxaa jiro waxa loo yaqaano square oo kale, circle oo kale jiro, tick ayaa jirto, diamond calaamado kala duwan ayaa jirto. Marka anaga waxaan qaadan doonaa calaamadaas aan qaadan doonaa. Marka ugu horeyso marka waxaan sameynaynaa click ayaan siinayna. Halkan markaan fiirino listigeena hadda waxaa inoo galay waxa waaye waa bullets. Kuwaas ayaa waxaa loo yaqaanaa bullet. Okay. Haddii aan rabno sidiisii hore inaan u celino oo aan ka qaadno bulletka maxaan sameynaynaa? Asiga oo sidaan noogu dooran qoraalkeena ayaa mar kale waxaan ku laabanaynaa bullets. Bullets markaan ku laabano kadibna waxaan ka dooran doonaa waxa loo yaqaano none. None markaan dhahno qoraalkeena wuxuu kusoo laabanayaa waa sidiisii hore. Intaas markaan kasoo gudubno habka labaad waxaa waaye waa number list. Number list waxaa waaye inaan u sameyno numbers waa 1 2 3 4. Sidoo kale number listiga waxaa jiro waxa loo yaqaano numberska caadiga ah alphabetical order A B C ah oo 2 nooc ah, marna capital ah marna small ah. Waxaa kaloo sameyn karnaa waxa loo yaqaano roman number. Marka kuwaas waxaa la isku yaqaanaa number list. Marka ugu horeyso listigeena ayaan select gareynaynaa kadibna halkan ayaan furaynaa. Halkan waxaa loo yaqaanaa waa number list. Number listiga markaan doorano option kala duwan halkan kaaga soo baxaayo. Optionska ugu horeeya waxaa waaye 1 2 3 inuu caadi oo numberska roman numberska oo kana waa alphabetical. Marka marna waa small marna waa capital roman number alphabetadana sidoo kale. Marka anaga midka caadiga ah 1 2 3 daas ugu horeyso iska qaadanaynaa. Halkan markaan imaano waxaa gale waxa waaye waa number list. Waxaa loo yaqaanaa number list. Okay. Number listiga marka haddii aan rabno inaan ka qaadno ayadana sidoo kale waxaan sameynaynaa selection qoraalkeena ayaan dooranaynaa. Qoraalka markaan doorano kadib halkan number listiga ku laabanaynaa kadibna waxaan leenahay waa none. Okay. Labadaas hab waxaa waaye waa bullet list iyo number list. Habka saddexaad waxaa loo yaqaanaa waa symbol oo ah calaamado adiga ku gaar ah inaad soo geliso. Marka aan rabno marka calaamado noo gaar inaan soo gelino qoraalkeena ayaan sidaan u dooranaynaa listiga kadibna waxaan furaynaa meeshaas oo ah bullets. Bullets markaan furno intaan waa hore ugu diyaarsanayaan waa library ama built-in waa ku diyaarsan yihiin. Anaga marka ma rabno waxyaabahan shirkadda Microsoft ugu soo tala gashay oo default-ka. Waxaan rabnaa calaamada anaga aan soo doorano noo gaar ah inaan soo gelino. Waxaan imaanaynaa define new bullet. Define new bullet markaan imaano halkan waxaan ka dooranaynaa marka symbol. Symbolka markaan doorano waxaa ku jira calaamado kala duwan halkan. Waxa ugu caansan marka waxaa waaye waa wingdings kaas la isticmaalaa. Halkan marka hoos u wadeynaa. Hoos markaan u wadno kadibna waxaan helaynaa calaamado kala duwan. Tusaale aniga waxaan u baahnaa calaamadaas oo tigta ah sidaas ah. Marka calaamadaas iska dooran doonaa kadibna waxaan leeyahay okay. Okay markaan dhaho halkan wuxuu preview siinayaa calaamadii qaabka u soo baxayaan check kadibna waxaan leeyahay okay. Kadibna hadda listigeyga waxaa la soo dooray waa symbols aniga ii gaar. Intaan markaan kasoo gudubno hadda marka aan fiirino listigani calaamadahani ama symbols ama bulletska waa madow farta sidoo kalena qoraalkayga waa madow. Marka haddii aan rabo
inaan bulletskan kalarkooda aan bedelno waa bedeli karnaa. Waxaan sameynaynaa marka hore selection aan sameynaynaa, qoraalkaan dooranaynaa, kadibna waxaan furaynaa bullets markaan furno kadibna waxaan dooranaynaa define new bullet markaan doorano kadibna waxaan imaanaynaa halka ay ku qoran tahay fonts markaan imaano kadibna halkaan waxaan imaanaynaa ay ku qoran tahay font color, halkaas ayaan furi doonaa font color kadibna waxaan dooran doonaa kalar buluug ah ayaan dooran doonaa. Kalarka buluuga markaan doorano kadibna waxaan leenahay okay markaan dhahno halkaan wuxuu na tusayaa preview sida uu soo bixi lahaa bulletskeeni kadibna waxaan leenahay okay. Hadda markaan fiirino farteeni waa madow sidoo kalena bulletskii oo aan soo dooranay kalarka waxaa laga dhigay waa buluug. Hadda waxaan dooranay waa bulletkii oo anaga aan dooranay iyadoo ay noo dooran tahay wax loo yaqaano kalarkii aan bedelnay. Marka cashirkeeni 6 halkaas ayuu noogu ogyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.